oo yiraahdo dad mas'uuliina oo asiga la mida oo wadanka la degan wadanka la leh ma imaan karaan inuu yiraahdo kuwa aniga iga fikir duwan ma joogi karaan oo yiraahdo oo xirxiro waa la yaabaneen laakiin inay waxaan soo wado waa dareemaynay waxa aad iyo aad u fiicneed in laga hortago dawladda dhexe iyo international community arrimahaas anaga qaylaan ka jeedinaynay maalin walba in qofkii aniga iga soo horjeedo ma imaan karo qofkii aniga iga soo horjeedo ma joogi karo waa xira wax muddo badan soo socday waay bani aadankan haddii inta qalad galo oo lagu fiirsado wuxuu isu qaataa inuu sax yahay marka horta arrimahaas saas ay u dhaceen haddana waxaan leenahay ninkaas waqtigiisana dhammaaday dalkan inuu asiga leeyahay keliya u haysto dalkuna waa laisla leeyahay Soomaaliya wada leh reer koonfur galbeeda wada leh qof ma laha markii hore waxay ahayd nin gurigiisu diidi karaayo wadan dad wada leeyahay ma diidi karaa diidmada uu diiday in laga diiday ahayd haddii taas inta loo fududeeyo looga aamusay dadka inuu laayo maanta ku daray marka waxaan rajaynaynaa dadka inta laay haddana inaan loo dhaafin in la xisaabtamo waqtigiisu waa dhammaaday soo madaxweynihii horaa inuu dadka laayo wax la qaadan karo maaha runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay intay dhimatay Allah u naxariiso intay ku dhaawantayna ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay caafiyo waxaan leenahay dadkaas ku laaynin in dadka la isku laayo kursi lagu ma haysan karo kursi waxa lagu haysan karaa ogolaashaha dadka raalahaashaha dadka wax wada leh adoo tixgelinaya la maamuli karaa laakiin in loo maamulo wadan dhan guri adiga leedahay oo kale war gurigaaga diidi kartaa laakiin wadan ma diidi kartid aniga intaas waa la yaabaneen waana ka qaylinaynay inay waxaan soo socdaana waa dareensaneen waxaan rajaynaynaa in waxaan laga hortago waxaan leenahay dawladda federaalka madaxweynaha gaar ahaan asiga aninka sharci ilaaliyaha gifka la sameeyo in wax laga dhaxal raba inuu yiraahdo shiran aada waa soo afjara dadkan layna shirkan ugu mathali karo koonfur galbeedna ma mathalaayo dadkii la fariistana wayna dulmiyeen haddii ogolaadaan inuu la fariisto dulana wax ma taraayo waxaan leenahay Cabdiaziz tilaabooyinku soo qaadayay way badnaayeen waana la arkayay runtii ilaa maalintu soo bilaabay waa la isla wada ogyahay ma qofa sida gurigiisa dal u maamuli karo ninkan rabaa soo galaa ninkan rabaa ka baxa weligeed waxa arkay male wadankan waa la joogi jiray mucaarad ayadoo leeyahay oo maalin walba mucaarad leeyahay mucaaradka meesha rabaan maray meesha rabaa sameynayay marka waxaan leenahay arinta ayada laga fiirsado walaalaheena oo nala joogo oo nabadgelyo u yimid waxaan leenahay walaalayaalow sida hadda wax u socdaan sax maaha hadaa ciidankii nabadgelyo u yimid aad tihiin inaan nabadgelyada shacabka fiirisaana fiican laakiin qof rabitaankiisii iyo in lagula shaqeeyo oo waliba waqti ka dhamaaday nasiib darro waay marka waxaan leenahay adduunyada waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in wax laga qabto dawladda dhexe waxaan leenahay dalka idinka ka mas'uula wax ka qabta baaqaasaan u jeedinaynaa waxaan leenahay shacabka reer koonfur galbeed dulanka ilaahay lama jiro ilaahay dulan lama jiraayo marka waa la idin dulmiyo haya waxaan leenahay adkaysta iskan celiya waan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh